اليسار محمد صلاح جول ام لا صلاح شنو هذا صلاح ما هذا يا صلاح سلطان البطولة الإنجليزية هذا هو نجم الكرة المصرية فخر الكرة العربية كامل الأوصاف فترى كل kusoo dhawaada channelkayga Hanfada Production hadii aad ku cusub tahay channelkayga fadlan ii saar subscribe wixii su'aalaha oo aad weydiin lahayd fadlan igu reeb qaybta commentiga aad ayaad u mahadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kuna wacan wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo aad dunida ka joogtaan rabadaanu kariim kusoo dhawaada barnaamijkeeni ciyaaraha caawa barnaamijka ciyaaraha waxa marti iigu ah Cabdiqani Cabdiraxmaan Faarax oo ku magac dheer Geesweyne wuxuu iga waramay waayihiisa ciyaareed yaraantiisii inuu ahaan jiray daafac markii dambana uu doortay inuu noqdo goolhaye kooxdiisa iyo xulkiisa gobolka Mudugna muhiim u ah dhowr jeer oo kala duwan looga yeeray xulka gobolka Mudug magac iyo maamuusna ku sameystay isla magaalada Gaalkacyo markii uu ciyaaraha ka fariistay wuxuu ku fikiray bulshadiisa inuu ka caawiyo markiis horena uu ka caawin jiray dhanka goolhayanimo markii dambana uu doortay inuu ka caawiyo dhanka garsooranimo aakhirkiina wuxuu noqday garsoore heer caalami wuxuu kaloo noqday arday tare ay jeclaadaan bulshada reer Gaalkacyo wuxuu ahaan jiray mid kulamada adag qabta inta badanna naxariis aan u muujin ciyaartooyda tiro dhowr jeer ahna la guddoonsiiyay abaalmarin uu ku muteystay shaqadiisa garsooranimo wuxuu hadda ka hor ka qayb galay aqoon kororsi lagu qabanayay garsoorayaal heer caalami ah oo ay qabanaysay xiriirka kubadda cagta adduunka ee loo yaqaan FIFA seminaarkaas oo ay ku qabatay dalka Djibouti seminaarkaas oo lagu guddoonsiiyay shahaado arbitrinimo waqti xaadirkana waa shakhsiyaadka ugu muhiimsan dhanka ciyaaraha Puntland wararkaas iyo warar kale oo badan ayaan ka wareystay Cabdiqani Geesweyne oo jooga caasimadda Puntland ee Garowe kusoo dhawow channelkayga Hanfada Official wadhawahay Cabdiqafaar ma sha Allah saaxiib wadhawahay magacaaga oo saddexan iyo halkii aad ku dhalatay aad baan horta kaaga mahadcelinaya Cabdiqafaar oo barnaamijkan legendary ku wareysatid iyo xasuustii dadkii hore iyo dadka hadda jooga say isu dhexgali lahaayeen magacaygu waa Cabdiqani Cabdiraxmaan Faarax waxaan ku dhashay magaalada Gaalkacyo waxaan ku soo barbaaray isla magaalada Gaalkacyo wahagaag iyo waran taariikhdaadii sports yarantaadii taariikhda sports waxay ka bilaabatay xaafad bay ka bilaabatay xaafadda Israac bay ka bilaabatay waxaan ka soo bilownay Bugle waxaan u ciyaari jirnay dugsi Quraan ka bacdi waxaan ku soo biirnay bahda sports caadiga ka bacdi waxaan u ciyaarnay iskuul baan loo ciyaari jiray ka bacdi waxaan ku soo biirnay Serie B halkaas oo aan uga soo gudubnay xaafadihii markii dambe aan u ciyaarnay xaafadaha Israac iyo Horumar iyo Wadajir iyo Garsoor iyo halkaas waayay ciyaaru ka soo bilowday koob xaafadkii aad ciyaari jirteen oo xaafad loo dheeli jiray wax koob qaad ma xasuusta koobkii ugu xasuusta badan buu kamid ahaa 1997 hadaan khaldanayn bay ahayd baa nin la yiraahdo Mutamba oo bish casaysan jiray wuxuu dhigay koobkaas oo loo dhigay 4 xaafadood aan xasuustaa xaafadda Israac baan u ciyaarayay koobkaas oo aan ku qaadnay dhibco oo ahaa koob aad u xamaasad badan oo maaliyada markaan ugu horeysay iyo buskud iyo waxaasina la siiyay oo nolosheedan ka bixi kara maskixiyan waxa weeye markii ugu horeysay koobna loo dhigay aad u qiimo badan wahagaag dadka inta badan waxay kugu barteen gool hayanimo markaad hore taariikhdu waxaan ahaan jirtay difaac wax ma ka xasuusataa difaacnimadaada walaalow hadda waxaan kaaga sheekeynay haddeertaanba xilligan difaaca ahaa oo koobkaas hadda aan qaadaynay xaafadda Israac oo kale difaac baan ahaa Serie B dan ku soo biirnay markaas Serie B difaac baan ka ciyaari jirnay waxaan ku ciyaari jirnay ciid guduuda marmar dhif waxa la jilaa isku balansan garoonka waxaan gali jirnay 9 saac si aan 10 saac iyo xooga uga baxno markii dadka loodkii naga waaweyn ay soo galayaan inahaas difaac baan ku ciyaari jiray koobkaas hadda ku sheegayo xaafadaha 97 wixii ka dambeeyay baan waxa ku soo biirnay Serie A
koobkii ugu horeysay aadoo ciyaar Sinan Bardacad baan ciyaariyay binji walaban binji ahaa koobkaas difaac baan ahaa wahagaag goormay kugu dhalatay inaad noqoto gool haye 98 baa waxaa la qabtay horta waxaa la sameyn jiray kooxda waxaan ku biirnay Sinan Bardacad markaas waxa watay Cali Soomaali kadib Cali Soomaali waa tagay xamar iyo meelahaas naga aaday Allah u naxariistay macallin Iyaas baa la wareegay kooxdaas marka waxa ahayd koox wada dhalinyaro bay ahayd markaas boortiyeeri la'aan baa jiray markii la kala baxo difaaca xoogaa dad difaac igu horeeya joogay markaas baa goosha baan gali jiray ka bacdi Allah u naxariistay macallin Iyaas oo aad kala yaqaan sport markaas noo ah kabtan macallin player baa markaas dareesay meeshaas inaan ku fiicanahay sidaasaan anu goolkiiba ku noqdayba wahagaag kadib imisa koox ayaa u ciyaartay horta waa iyaga ugu badnaa ciyaaraha waxaan u ciyaaray kooxdii la oran jiray Galcom laba jeer oo aan ka tagay labadii jeer oo ka soo jeestay labadii jeer baa waxaan u ciyaaray Sixa iyo Flambo labadii jeer baa nasiib wadaag final baan nimid oo iyaga iga qaaday Galcom intaad matalaysay imisa koob ayaa la qaaday walaal lama aan tirin karo koobkan Galcom la qaaday koob fara badan bay ahaayeen waayo waayay ugu badnaa ciyaaraha Galcom baan joogay laakiin koob badan baan la qaaday intaad gool hayahay gobolka ma matashay waa matalay 2000 xulkii 2000 la qaatay waxaan ahaa boortiyeeriga labaad baan ahaa Leighton boortiyeeriga labaad u ahaa ka bacdi waxa yimid Umar Bafle sidaasaan marka boortiyeeriga saddexaad ku noqday boortiyeeriga koowaad iyo kii koowaad baan fursad helin boortiyeeriga labaad baan fursad helin oo Umar boortiyeeriyaasha ugu fiican Puntland aba markaas joogay Leighton labaad buu ahaa markaas arugu waxa la yaqaystay waayo aragnimo sidaasaan waxa uga mid ahaa xulka laakiin min yar oo waayo aragnimo loo kaxeeyay baan ahaa ka bacdi xulka mar waa bixi jiray binji baan iska ahaan jiray 2009kii hadeertaan ahayd baan koobka gobolada ka qayb galay ciyaartii ugu adkayd oo qardho ciyaartaasaan qabtay wixii iga dambeeyay anu boortiyeeriga culays iskama saari jirin aan birimo noqday inaan sugunta noqdo ma kala jeclaan jirin guusha baan jeclaan jiray Jelani boortiyeeriga birimada ahaa isagana markaas firfircoonaayo aan uga dambeeyay walow la oran jiray gal laakiin ciyaartaas ugu adkayd baa ciyaartaas oo macallin Alxoon iyo Allah xasim Alshiin bay u garteen in ciyaartaas ciyaarta ugu adag oo lagu soo bixi karo ciyaartaas baan ka qayb galay 4-1 baan ku badinay imisa koob baad waqtiyadiina ka qayb gasheen oo banaanka aad ku soo ciyaarteen haddii aan leed koobka Puntland Galcom ويجدا ciyaaro banaanka fara badan ay u baxday laakiin koob kale waxa jiray aan ka qayb galnay oo aan aanay meesha Boosaaso oo dhowr gobol isugu yimaadeen nasiibuna koobkaas meel fiican oo marayna ayuu shilal baa dhacay oo koobkaas waa istaagay guushaadii kugu fiicneed waayahay ma xasuusata intaad gool hayaa ahayd guusheedii ugu fiicnayd guulo badan baa jiray oo muddo baan kubadda ku soo dhex jiray laakiin guusha aan is oran karo guusha kugu adag laba guulood ayaan xusi karaa waa guul xalwa Kismaayo koobkii degmooyinka aan la ciyaarnay boortiyeeriga labaad baan ahaa boortiyeeriga koowaad baa Bur Saalax Roosab ku qaatay Togo ciyaartii aan la ciyaaraynay xalwa Kismaayo oo isku aadnay 4tii ayaa ciyaartaas oo aad kooxda Galcom ay u moral jabsanayd intifaacana oo naga maqnaa oo raaga xayraan oo markaas dhaawacna inta naga noqday nagana soo horjeeday baan waxaan ku nimid 12 ciyaartooy oo ciyaartaas waxaan ku badinay nasiib wanaag isku xirnaansho iyo kalsooni fara badan ay kooxdu qabtay baanu xalwa Kismaayo oo Puntland ciyaartooyda ugu qiimaha badan ay u ciyaarayeen baan waxaan uga badinay 5-1 ciyaartaas aan oran kara ciyaarta koowaad weeye ciyaarta labaadna waxa weeye
dowladda hoose baanu la ciyaarnay 2002 baan jeclahay inay ahayd waa koobka kaliya oo aan isleeyahay boortiyeerayaashii gobolka soo maray waa adeedhahay koobkaas waxaa koob ambinti ku qaadnay isla markaasna iyadoo aan shabaqayaga gool taban baan qaadnay ciyaartaas waxay ahayd ciyaartii finaalka ahayd waxaanu la ciyaarnay kooxda dowladda hoose kooxda dowladda hoose waa koox aanu isniin walba ciyaari jirnay isniin walbana way naga badin jirtay especially isniin walba hal iyo walba naga badin jiray sida badanna xasan afxa waa goosha naga dhalin jiray finaalkiina waxaan isku aadnay isniin baa isku aadnay iyadoo markaas isniin ay hore nooga badin jiray oo kooxda Dismorol ay ka tahay aan ku soo aadnay nasiib wanaag ciyaartaasu waxaan uga badinay hal iyo eber daqiiqadii labaadii saddexaad maqaanayba maxamed sheekh baa madax ka dhaliyay waan ugu dhameynay ciyaartaas oo oran karaa iyana ciyaarta labaad oo biskixiyan aan ka dhamaan madaxayga guuldaradii kugu xumeedna guuldaradii ugu xumeed mina ilaawi kara maahan waxaanu la ciyaarinay koob jeeko koox la yiraahdo watay haddana khaldanin Saciid Cabaye baa daqiiqadii koowaad banooni taraar xasaas loo soo laabay baa difaaciga raaga xeyraan oo aad difaac isugu kalsoon ahaa baa wuxuu yiri banooni taraar xablo kuma aadana goosho saas u fiirshay banooni waa yeesay waa iska daayay bise banooni shaqo dhex yaala hal iyo markaasna kaga badiyay garoomadu shabaqyo ma lahayn ilaa 2 gool 3 gool aan dhalinaa albitraha ishiisu maysan qaban ciyaartii igu nasiibka waxay igu ciyaartii ugu adkeed baahayd oo macni maskaxdayda ka bixi guuldaradii ugu weyn taas oran karaa goorma ayay kugu dhalatay inaad referee noqoto waqtigii ayay ahayd gudoomiye Sudgeed baa ahaa xilligaas 2008 iyo Cabdi Muuse iyo Cabdulqaadir Maxamed Faarax oo Soomaalidu u taqaano Naciim ayaa waxay maamulka sportiga galab maalinba ii yeereen waxay dhintay tababar baa waxa ka dhacaya gaalkacyo Puntland oo la isugu keenay 5 gool oo Puntland iyo Cayn marka waxa la garsooryaal baa loo baahan yahay annaguna waxa u aragnay inaan ka qayb gashid tababarkaas sidii baan uga faa'iideystay 2008 markaas garsooryaashii ka qayb galay oo 5 gool kala socday degmada Cayn ciyaarihii Puntland ma lagaaga yeeray oo garsoore ma ka noqotay ciyaarihii Puntland waa la iga yeeray 2012 baa la iga yeeray waxaan ku qabanay 7 garsoore waxaan is oran karaa garsoori ugu ciyaaraha badnaa baad ahayd qabashadooda waayo sama finalkii waan qabtay finalkii waan qabtay groupkii waxaan qabtay ciyaaro badan baan qabtay aniga iyo garsoore warkaas anigu aan soo saaray oo degmada Galdagob ka soo kaxeeyay gaalkay ka shaqeyn jiray Xuseen la yiraahdo iyo aniga baan ahayn iyo garsooryaal kale runtii koobkaasna waxa la siiyay garsoorihii ugu wanaagsanaa baa la siiyay oo tartanka dadka hayba igu abaalmariyay finalkiina ana qabtay soo finalkiina ciyaar baan qabtay waxaa jirtay hadda ka hor inaad seminar waaday Djibouti seminarkaasna waxa qabanaysay FIFA waxa ma ka xasuusata taariikhdaas waa ka xasuustaa seminarkaas waxa seminarka aniga igu qiimaha badnaa 2013 buu ahaa afar garsoore Puntland laga soo xuray baan ka mid noqday runtii wuxuu ahaa tababarkaasu tababar heer FIFA buu ahaa waxaan ku tagnay Puntland dhan afar qof baan ka soconay 31 garsoore baan jeclahay inaan ahayn runtii tababarkaas tababar wuxuu ahaa aad igu qiimo sareeyo ahaa marka faa'iidooyin fara badan baan ka soo kororsanay Muqdisho ayadana waa lagaaga yeeray isla seminar ayadana ma jirtaa muqdisho waa jidaa isla sanadkaas bilowgiisii uu ahaa tababar baasan u tagnay kaas muqdisho wuxuu ahaa xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed buu ahaa kii gaalkacyana xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed buu ahaa garowa mid ay ku qabteen isla garowa xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed buu ahaa laakiin ka Djibouti wuxuu ahaa FIFA ahaa oo waa ka level sareeyay xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed macallimiinka FIFA oo ajnabi ah qabanaysa maadaama aad tahay nin aqoon iyo aragnimo u leh dhanka garsoorka muga faa'iideysay dhalinyarada mustaqbalka waqtigaas rabtay inay garsoorayaal noqdaan ee gobolka Mudug waa su'aal aad wanaagsan weeye Cabdiqafaar runtii garsoorayaal aad u tiro badan baan ka soo saaray gaalkacyo oo ciyaari hadirtaan ilaa koobka ugu dambeeyay ba qabanayay marka dabcan garsoorayaal fara badan baan ka soo saaray
kuwa ilaa degmooyinka garsoorayaal baan ka soo saaray. wax ma ka xusi kartaa kuwa aad soo saartay su-aashaas waa u kadisay waan ka xusi karaa waayo dad ila soo shaqeeyay weeye waxaa ka mid ahaa Saciid Cabdikaafi Saciid Budlo waxaa ka mid ah Caydi waxaa ka mid ah Cali Yare waxaa ka mid ah Qadar Coday waxaa ka mid ah Qoorweyne waxaa ka mid ah Cabdullaahi Francesco waxaa ka mid ah Xuseen Yuuro oo yiraahdo Galdagob jooga waxaa ka mid ahaa kuwa kale iyagoo tababaro u dirnay oo iyaguna ka faa'iideystay laakiin dadka aan markaas aan isleeyahay way kula soo shaqeeyeen oo maxaa la yiraahdaa tababarkii way ka faa'iideysteen ayaguna ay ahaayeen dad aad u firfircoon oo maxaa la yiraahdaa tababarnimada ama waxa kaliya aad afka xataa uga sheegtid qaadanaya bay ahaayeen runtii waana garsoornimadayda aniga shakhsiyadayda iyo garsoorka gobolka Mudug iyo Puntlandba raggaas sabab u ah inay kor u kacdo oo kooxaha iyo shaqadooda si fiican loo qabto waxaad ahayd madaxa garsoorka gobolka Mudug dabcan ma lagu soo magacaabay mise tartan ayaa u gashay ma wasaaradda ayaa ii garatay iyo maamulka isboortiga markaas xilliga joogay waxaad ka mid tahay guddiga garoonka Cawaale Stadium xagee ayuu idin marayaa dabcan garoonka wallahi niyo Cabdiqafaar garoonka Cawaale dadku sida badan waa la socdaan garoonka wuxuu marayaa heer gabagaba ah duulimaadyadii iyo waxaas kala go'ay baa sabab wax u noqotay in roog aan wali la dhigin laakiin garoonkii waxa la yiraahdaa set base-kii ama meeshii lagu ciyaari lahaa waa la diyaariyay tuubooyinka waa la geliyay tarabuunka waa diyaarsan yahay VAB-dii guryahoodii waxoodii waa diyaarsan tahay waxaan oran karaa hadda waxaan naga maqan waa roofkii iyo maxaa la yiraahdaa silkii iyo iyaguna iska sahlan laakiin jineeradaas hadday yimaadaan garoonka hawshiis waa dhamaanaysa haddii la idmo waxayna ku xiran tahay inta duulimaadyada waxaas inoo furmi doonaan haddii la waxaa tahay gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta Puntland maxaa idin qorsheysan Cawaale markuu dhamaado ما شاء الله سؤال مهم ويا حلو كبد عرفتي بنتلان وسارة دوس الصعدة ضمان سبورت كلهم وحاول ديارسن هذه جرامة رمضان وش عصبة ديارسن احنا شايفين ان جرامة انت سنمان انت برا السنوية حلو كبد عرفتي حلو كبد عرفتي بنتلان السنوية ودي حق الصور مامو يوم معلمين تاع سلوسي دياري dadkii markii koobka la qaban lahaa dadkii aqoonteeda lahayo kooxaha gacanta ku hayn lahayo haday macallin noqoto iyo haday garsoor noqoto iyo haday maamul noqoto waayo saddexdaas hadaan lahayn garoon iyo ciyaartoy kaligood waxuma tarayaan ciyaartoydii iyo kooxihii iyo dhamaantood dadkaas waa dad diyaarsan oo adeertaantii garoomadaas u bay sugayaan laakiin maamulku waa muhiim waana sharciga qofku markuu barto wixii kubadda iyo wixii kala hagi lahaa way gobolka Mudug waxaa ka jira 10 koox maamulka kooxahaas iyo ciyaartoyda maxaa baaqa u diraysaa dhamaan horta 10 kooxood gobolka Mudug ka jira waa u mahadcelinayaa waa dad ka shaqeeyay garoonkan iyo sportskan iyo horumarkiisa 10 kooxood maahan iyo biida iyo siiduba iyo dhamaan inta sportiga ciyaadinta taageerada runtii gaalkacayo ama gobolka Mudug waxa la oran karaa waa dad dhamaantood isku xiran dadkaasuna waa dadkii hintisay ama kasoo shaqeeyay garoonkaas kubadda cagta Cawaale in dhismo Cawaale bilowdana waa dareemi ka dhaah ku dayashada lagu dayday in ilaa iyo maxaa la yiraahdaa stadiumka weynaa ee qaranka Soomaaliya la dhisay marka waa meesha kaliya oo gaalkacayo markasta laga hindiso horumarka ee ka dhaca dalka oo dhan waa wada xilqaamayaashu meesha ka soo bilowdeen waaye waa wada garoomadan la dayactiray meesha ka soo bilowdeen waaye marka fariinta ugu dambeeyaan diray waxa way garoonka markii la dhistay in la wada waardiyeysto kooxaha ay u sinaadaan hadii ay noqoto hadii ay noqoto iyo hadii ay noqoto iyo iskuuladuba dabcan waxaad ahayd mar difaac marna waxay ahayd gool haye dabcan waxa jirtay inaad kubadda cagta ku gudan jirtay ma dooran kartaa dream team-kaaga 12 ma ka dooran kartaa Cabdiqafaar aad baa u mahadsan tahay runtii dream team-ka markii la yiraahdo kulli waa dadka aad u jeceshayn ka ciyaaraan ama aad ku ag joogaan laakiin gaalkacayo waa meesha ugu ciyaartooyda badan Puntland ay soo marday dadka ugu quality-ga sareeya ay soo mareen laakiin aan shakhsiyan waxaan oran lahaa dad dream team-ka u soo qadan lahaa waxa kamid ah
duwo kale farxaan carabi in la yiraahdo gaalkuna ciyaari jiray tare waxaan u soo qaadan lahaa cabdiqaadir maxamed faarax in la yiraahdo naciim number 4 waxaan u soo qaadan lahaa raaga cumar xasan raaga xayraan number 5 waxaan u soo qaadan lahaa mustafa aadan muuse mustafa walwa number 6 waxaan u soo qaadan lahaa lilaan cabdisalaam masinge number 7 waxaan u soo qaadan lahaa cabdulqaadir sandeere number 8 waxaan u soo qaadan lahaa khaliif number 9 waxaan u soo qaadan lahaa buraan cabdullaahi shiil buraan culul number 10 waxaan u soo qaadan lahaa axmed dhagaweyne 11 maxamed sheekh aad baa u mahadsantahay barnaamijkan aan ku wareysto ciyaartoydii hore kuwii dhexe kuwii dambe sidoo u aragtaa adigu walaaliyo waa fikir dadka maqnaa dad badan oo suxufiyiin oo sports oo aan islahaa barnaamijkan dadka weyn bay hindis lahaayeen laakiin maadaama adiga ka hoos baxday oo dadkaas suxufiyiinta ahaa oo legendiga ahaa oo barnaamijkaas la aan islahayn way hindisayaan ama barnaamijyo kale dalka ahaa oo hadee nimankaas waa suxufiyiin waaweyn laakiin waxaan goolkaas ciyaaray oo dhaliyay waa adiga cabdiqafaar aad ma kaaga mahadcelinayaa barnaamijkaasuna dee qof walba waayihiisii iyo garoonkan siduu ahaan jiray barnaamijka la soo ciyaari jiray iyo waxa weeye taariikh la xasuusinaysaa kulli waa barnaamij aad u qurux badan hadda dhalinyaradii ugu horeysay oo kale markay ka sheekeynayeen waa qiiroonayay ilaa waxaana dadkii usoo joogay barnaamijkaas oo iyo waxa ay ka sheekeynayaan iyo barnaamijyadaas kale hadda mahad umar oo kale markuu ka sheekeynayay waxa garsoore waa fiican oo aad u maartay gaalka looga taageero oo degan buu ahaa ilaa xad degan buu ahaa oo garsooreyaasha aan jeclaan jiray uu kamid yahay taariikh marka sheekeynaya oo kale dee wixii aad caadi u daawanaysay oo kaaga sheekeynaya noqonaysaa garsooreyaasha aan xusi karo aan oran karo gobolka way soo mareen oo axmed eelay oo kale faarax shumuri iyo liban computer cabdullaahi horar iyo ragaasoo kale allah naxariisto shiino oo ahaa dee ninka kaliya oo aan oran karo gaarxay hobseedku barayba ragaasoo kale waxay ahaayeen dadka aadka ugu maartay garsooreyaasha aan macnii jeclaan jiray weye ciyaartoyda kalena dad badan oo ragga haddaan soo xushay aan ahayn oo laacibiin oo fara badan baa jira oo aan hadda soo koobi karin marka dream teamka iyo way kala yihiin iyo laacibiinta gobolka soo madhay ama degmada soo madhay aad baad u mahadsan tahay intaas waxaan nagu ekaa wareysiga aan kula yeeshay waqtiga muhiimka aad siisayna waa kaaga mahadcelinayaa waxaan ku rajeynayaa fiidnimo wanaagsan khayr badanna waa ku rajeynaya ما شاء الله سيدو كلام خير فرضوا مخرجين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مساحات ومحمد صلاح اليسار محمد صلاح جول ام لا صلاح kusoo dhawaada channelkayga hanfada production haddii aad ku cusub tahay channelkayga fadlan ii saar subscribe wixii su'aalaha oo aad i weydiin lahayd fadlan igu reeb qaybta commentiga aad ayaad u mahadsantahay